kama hadlina qarnigii la soo dhaafay ee 20aad sidoo kale kama waramina dhacda ka dhacday wadamo kale haddii marka fanka Soomaalida la soo hadal qaado ay maskaxdaada ku soo dhici jireen xidigihii ruuxi jiray masraxyada Soomaalida ee Maxamed Mooge Xasan Aadan iyo Muuse Ismaaciil Qalinle hadda ma ahan xaalku sidii aad ku ogeyd haddaad hore u taqaanay boqorka codka Soomaalida ee Maxamed Saleebaan Tube hadda waxa jira boqorka raabka Soomaalida wiilka aynu ka hadlina magaciisa oo dhameystiran waa Sharmaaka Cabdinaasir Maxamed oo loo garan og yahay Sharma Boy waxa uu inta badan ku soo heesaa ereyo jacbur ah oo la isu keenay kadibna laxan la saaray oo muusig loo tumay sanadii hore ee la soo dhaafay ayuu ka soo muuqday masraxyada waaweyn ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ah meesha uu ka bilaabay raabka kadibna waxa uu noqday fanaanka loogu dhageysiga badan yahay ee dhanka Soomaalida erayadiisa jacburka ah iyo codkiisa xabeebta leh ee halaasiga ah ayuu ku noqday xidiga raabka Soomaalida waxa sameynaya samey kara Soomaalida shidan yaa u shidi kara sida Sharma Boy shacabeli kara like siki samada ku socon kara waxa sameynaya samey kara Soomaalida shidan yaa u shidi kara sida Sharma Boy shacabeli kara like siki samada ku socon kara sidoo kale heesihiisa raabka ayaa waxay u badan yihiin kuwa madadaalo arrimo bulsho iyo kuwa wadaniya kuwaasi oo u badana kaga hadlo hadba xaaladaha lagu jiro hadda tagi lahaa Djibouti waxaan noqon lahaa Atuuti jamal ige jabal isi akuma jara cid kale lama jiro waajibkaygi jeexaygi Djibouti meel kama jiro waajibkaygi jeexaygi Djibouti walla taama jiro hadda tagi lahaa Djibouti waxaan noqon lahaa Atuuti jamal ige dhanka heesaha jacaylka ayaa uu iyagana ku noqday xidig aan la holin karin marka loo eego dhanka jiliinka iyo qaabka cajiibka ah ee uu soo bandhigo Sharma Boy waxa uu inta badan ku naalooda ku tiirsanaanta taageerada bulshadiisa waxaanu gaashaan adag ka dhigtaa malaayiinta da'yarta ah ee taageersan isaga raabkiisa 4 bilood ka hor ayay ahayd markuu soo qaaday hees uu ku sheegayo in uu tacab badan u soo maray sidoo ku heli lahaa bulsho isaga taageersan iyo inuu yahay isagu wiil u soo baxay wadanka markan gal tacab 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 waxana la shacab 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 farxad iyo sacab 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 kadib waxa ka nacab markan gal tacab 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 farxad iyo sacab 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 waxana la shacab 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 kadib waxa ka nacab أنا وإكن مبلغ إجوايا هالكن وويل أصبح دلكن وحن وحكو أهاي دلكن Sharmaaka Cabdinaasir koobiye 20 jir kan saameynta ku dhaxyeeshay fanka Soomaalida ee cusub ayaa maalmihii u dambeeyay la kulmaya dagaal dhanka baraha bulshada ah kaasi oo lagu doonayo in lagu weysiiyo taageerayaashiisa isla mar ahaantaana lagu burburiyo fankiisa curdinka ah ee ka talaabay xuduudda Somaliwood all the world waxayna dhahan good ana kana wabalo look taariikhdayda ka barbo waan horeeya Hollywood hadda iga soo saar Bollywood dadka iga baro ani hortay mala marmaro soo xiro maro gorgoro waxa ku la baxay cambaro adaa bilaabay